بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa marka hore inaan halkan uga mahad celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo qalalaasihii maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad marasa masaakiin ah maanta ay ku barakaceen marka ugu horeyso waxaan rabaa in dadkaas loo turo Ilaahay subhanahu wa ta'ala bil Ramadaan la joogay in dadkaas waqtigooda ama soo laabashadooda aan la garab galno in kasto barakacooda uu sabab jiro waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha ay ku saabsan yihiin doorashooyinka wararka soo laabanayo waxay sheegayaan madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha in ay cadeeyeen mowqifkooda ku saabsan 17 September dalka inuu aadayo aad iyo aad u soo dhaweynaa waa wax fiican oo lagu farxo oo qeyr ah oo wanaag waa in la soo dhaweeyaa in kasto ay soo daaheen waxaan kaloo ku celinayaa arintaas haday daacad ka tahay madaxdaas 114 soo dhaweynayna haday daacad ka ahayn attention-kan anaga mar walba iska taagan yahay waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday xalay khudbadaada waa dhageysanaynay midda labaad waxaan rabaa walaalaha kale oo midowga musharaxiinta ee magaalada joogo arrimaha socdo wixii makri ah in laga digtoonaado wixii aan makri ahayn oo wanaagsan in la soo dhaweeyo inay alguurlaawa iyo qorqor ay ku baaqaan in 17 December la aado ra'iisul wasaaraha uu ku baaqo waa wax fiican oo qeyr ah Ilaahay baan ku mahadsan hadii laakiin la yeeli waayo oo madmadow labaad uu soo laabto anagu seenbari arrimaha yaga meel noo taala waxa ku soo haray baarlamaanka sabtiga la raba inay hadlaan baarlamaanka waxa la rabaa magaaladan inaysan qallaaso iyo dhibaato u horseedin doorashay soo galeen dadkoodii goboladooda laga soo doortay maalmo dhawaato 52 waxay u horseedeen extension-kan iyo ku darsigan war dadkiina ku laabta war kuraasta anaga idin ogol war waa la idin dooranayaa laakiin ina magaaladan dib u celisaan cid idin ka yeelayso wallahi ma jirto waxa la rabaa dadku waa isku wada dad la isma nacba cid isnacab maanta ma jirto qabiil ma aha waa un doorasho wax la isku haysto waxa la rabaa baarlamaanka sabtiga hadli doono inay kaalintooda qaataan qaas ahaan gudoomiyaha baarlamaanka mursal dardarankii odawaa oo maalinta ku siiyay iisan ku dhaafin wuxuu ku yiri walaalow yaan dhiiqa faraha lagu gelin dadka madaxweynaha extension-ka ugu daray ee walaalaha ee saaxiibada ee siyaasiyiinta ah meel fog laga ma jirtiin hadda soo laabatiin walaalaheena tiin waxa isku haysano waa doorasho wax kale oo aan isku haysano oo aan hadda ka wada hadlayna ma jirto cid gooniyo loo colaadinayo ma jirto kuwii dhahay qof iyo cod wadanka aada kuwii wax tilmaamayo kulligu saaxiib walaalahaana muhiimadeena waxay tahay wadankan doorasho gala waxaan rabaa inaan mar labaad ku iraahdo legacy fiican wadankan uga tag adduunyadu maanta iyo bari ma aha xalay khudbadaadi waxa ku jirtay dadka inay badbaadiyaan raba ayadaas ka dhabe laakiin maalin walba sida dhus maray hadaa tira baarlamaanka oo la laabana baarlamaanka waa wax laftirkooda waxa la rabaa inay dib isku laabtaan war iimaansada goboladiina war tuulooyinkiina aad ka soo heleysaan kuraasta war waxa idin ka halaabay ma jiro magaaladan oo dhig ku daata dan idin kuuma jirto magaaladan oo dad shacab oo masaakiin ay ku barakacaan dan idin kuuma jirto gabagabadii waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidamada ka gadooday ku darsashada labada sano ah aad iyo aad u soo dhaweynaa aad iyo aad qalban wa ficlan soo dhaweynaa sababtoo ah mabda'ayga inaan cadeeyo waa aniga oo aan isqarin waxa ku soo haray madaxweynaha iyo khudbadihiisa madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad xilkaaga waa dhamaaday baarlamaanka xil u dhaqneen oo ra'iisul wasaaraha xil u dhaqneen waxa dhan waa gaarsiiyal hadda tiraahdo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii madaxweynayaasha gobolada ay qalaafo halkaas ay aadeen waxba dhib ma aha kuma aysan qalaafin doorasho laga hadlaa kaliya maanta adaa dhaqaalihi iyo adduunka isku haysta tartan waxba kaama halaabayaan gabagabadii anaga waxaan ku midaysanahay haddaan midowga musharaxiin nahay haddaan siyaasiyiin nahay haddaan dhaqan nahay waxaan leeyahay ilaaba waxaan rabnaa doorasho in loo laabto qasiyad iyo buuq iyo qeylo ma rabno waxaan rabaa inaan shirkigan jaraa'id uga faa'iideysto madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle wax allaalay waxa kugu dhacay reer kuguma dhigin Soomaali kuguma dhigin ashqaas dan leeyahay kugu dhigtay raalle kama nihin waxa kugu dhacay Soomaaliya iyo Djibouti waa walaalo waxaad noo qabatiin ognahay waxa aan ku qabanaan ognahay Barcelona aniga buug ayaan ka sameeyay waqti iyo Janis maanta aan kugu soo gaarsiiyay ma hayo laakiin waqtigeedan suganaa insha Allah xasaarad kale aan ku jirnaa waxaan kala too rabaa inaan soo dhaweeyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland 17 September hadii la yiri waa inaad soo ajiibtaan wax naga halaabaya male shal hada af nagu difaacayeen maanta anagoo walaalo ah oo isku wada mabda ah aan ka soo horjeesano ku darsasho wax leeyahay madaxweynaha waqtigiisa labaad haduu tartamay cid ka xigta male haduusan tartameen waxaan bogaadinayaa in uu dadka walaalihiisa soo raaco dhibaato iyo buuq iyo qasiyana meeshan waxba looga ma cuno waxaan gabagabada warkay ku soo qatimayaa
dadka reer muqdisho ee barakacay waxaan ku talin lahaa in loo gurmado oo ay guryahooda ku soo laabtaan oo aan dhaqaale iyo saadii wax u aruurno ilaahay idankiisna khayrka wuxuu ku jiraa bil ramadaana lagu jiraa in la isku tanaasulo in macnaha la isxaan falo